wasiirka arrimaha gudaha Somaliland iyo wasiirka warfaafinta oo maanta ka qayb galay kulan lagu falanqeynayay doorka ay saxaafaddu ka qaadan karto nabadda Somaliland ayaa ku eedeeyay 30 wariye iyo telefishinadoodu inay ka mushaar qaataan dawladda Soomaaliya. ugu horeynba wasiirka arrimaha gudaha Somaliland Maxamed Kaahin Axmed oo halkaasi ka hadlay ayaa tilmaamay inay dawladdu gacanta ku hayso liiska 30 wariye iyo telefishinadooda oo ay tilmaameen inay ka mushaar qaataan dawladda Soomaaliya. annaku dooni mayna saxaafadda iyo dawladda Somaliland inay culuubaan ma rabno ma doonayno inaanu noqono maxaan ku dhahday qolo wax fadhaysa oo saxaafadda fadhaysa oo saxaafadda iscadaawadaysanayaan liis baan halkaa ku hayaa 30 wariye iyo maxaan ku dhahday TV ayaan halkaa ku hayaayo dawladda Soomaaliya lacag wada qaataan maanta horteed ma maqasheen miya cid mas'uul dawladda ka tirsanay inta idin hor fadhiisatay ay ku tiri intaasaan noqonayna dawladdu libada sabay wararka loo helaayo wararka waxa dawladda loo yahay in war la helo ma doonayna markaa in aan ku degdegno ama dawladda ay aad ugu degdegto in maxaan ku dhahday arrimaha noocaasa mushkilada laga dhigo waxaan aad ugu faraxsanahay inaanay habluhu ku jirin oo taas macnaheedu ay keenayso habluhu idinka muwaadinsan yihiin ragga naxiijiye markaanu shirarka jaraa'id qabanayna isbuuxbuuxeen nafta dadka isugu keena liiskaasi ku wada jira waxaan doonaynaa markaa kala mihinadana waynu nahay oo idinka mihinadiinu waa saxaafadda laakiin marka aynu isu wada tagno waxaynu ka mid nahay qarankan Somaliland baynu ka mid nahay kan uu inaga dhaxeeya ninka muwaadinka ee caadiga ah suuqa jooga iyo madaxweynaha Somaliland waa wada muwaadin. dhinaca kale Saleebaan Yuusuf Cali Koore wasiirka warfaafinta Somaliland ayaa dul istaagay xafiisyo uu tilmaamay lacagta looga soo diro liiska wariyaasha ay eedeysay xukuumaddu. saxaafadda inamada waxaan leeyahay hadda sidaa wasiirku sheegay maalin hore ayuu wasiirku inkastoo aan waraaqdu isoo gaarin maalin ii sheegay inay jiraan dad badan oo ku xidhan ra'iisul wasaare ku-xigeenka xafiiska ra'iisul wasaare ku-xigeenka Soomaaliya in laga bixiyo qarax badan waanu lacagta budgetka ee la sameeyay iyo lagama warlaa TV-yada iyo ragga iyo Facebook-yada iyo lagama warlaa waa dhowris aanu isleenahay markiiba yaan lagu dhagin halala taliyo waraaqda hadda idin tusayay wasiirku TV-ya ku jira jaraa'id baa ku jira rag badan oo Facebook-yada caan ku ah yaa ku jira oo qabaxda halka kala soo xiriira ninka ra'iisul wasaare ku-xigeenka sheegtana de waynu garanaynaa halkan uu ka shaqeynayay shalayto haddii hadda iyadoo sidaa wax loo hubo haddana la gacan geliyo dad badan baa qaylinaya saxaafadii baa la caburiyay hebel baa loo jeedaayay waa kan adeerkiisa halkan anigu wasiir isku cusub wasaaradana ilaa iyo hadda gacantaydu cidna ma gaari anigu xitaa kuwa og anigu qof kasta oo maanta wasiirka arrimaha gudaha waa jooga taliyihii ciidanka biliiskuna waa jooga xuquuqul insaanka waa jooga qof kasta laga bilaabo maanta iyo institution kasta oo saxaafadeed waxaanu la treat kareynayaa waxaan noo hayaa page cusub. Maxamed Jookar Home Cable TV Hargeysa. adeega cusub ee shirkadda Dahabshiil iyo Dahab haddaba macmil adeegan cusub ee casriga ah waxa uu ku sahlayaa in adigoo jooga gurigaaga ama goobtaada shaqo aad lacag ugu xawishid asxaabtaada iyo ehelkaaga jooga daafaha dunida.